تقود شوريو نوشيغا وناك لساعين كارو وشمي شروضو شبنا قدها شكر سعوتان وشيقونه كاشيحا وحين شرفت ليه كاشيحا وحين شرفت ليه شدنا لجوك طيبة شدنا قبح شرصو صعوتا ديرا شدنا لجوك طيبة شدنا قبح شرصو صعوتا ديرا إن شاء الله شوش كانوا نواشا فيع الله شبتي نبتك شلت بوبتاي شوتا وصودك شبتي نبتك شلت بوبتاي شوتا وصودك شدنا لجوك طيبة شدنا قبح شرصو صعوتا ديرا شدنا لجوك طيبة شدنا قبح شرصو صعوتا ديرا إن شاء الله شوش كانوا نواشا فيع الله شبتي نبتك شلت بوبتاي شوتا وصودك شرا تقود شوريو نوشيغا وناك لساعين كارو وشمي شروضو شبنا قدها شكر سعوتان وشيقونه كاشيحا وحين شرفت ليه كاشيحا وحين شرفت ليه شدنا لجوك طيبة شدنا قبح شرصو صعوتا ديرا شدنا لجوك طيبة شدنا قبح شرصو صعوتا ديرا إن شاء الله شوش كانوا نواشا فيع الله شبتي نبتك شلت بوبتاي شوتا وصودك waxaan galabta iskugu nimid kulankan barakaysan kulankan ama shirkan wuxuu ku saabsan yahay waa kulan wada tashi dhalinyarada maxamed ibraahim ama reer maxamuud shirka ciwaankiisu waka muddo badan baan qabanqaawadiisa kusoo jirnay muddo bil ku dhawaada iyadoo ay gashay maskax iyo maal iyo muruq intaba halka ugu sareeyana iyo hamiga laga leeyahayna waxa weeye waa mideynta dhalinyarada maxamed ibraahim reer maxamuud waxaan ognahay inay baahsanaan badan inagu jirto waxaan ugu talagalay dhalinta reer maxamuud ee ku nool gobolka mudug inay sida dadka kale oo ummadaha kale ay u wada tashadaan every time inaan iskugu nimaadno kagana tashano aayaheena iyo mustaqbalkeena fog iyo midka dhowba taasaa waxay nagu kaliftay inaan dhalinta iskugu yeerno hadafka aan u kulminayna aan u sheegno hadafkaan u kulminay waxa weeye inagu awalba midowgeenu wuu jiray laakiin intaan oo qof hadda meesha fadhida hadii la idhaa xisaabi 7 ama 8 qof baan ka garanayaa intaan oo qof oo aqoon-yahan habeen dhaweyto waxa dabcan inaan tiro koobno dadka 7 markaan marayno jaamacada dhameeyay baa gacanta lagu daashay haddana iskama warqabaan ismana yaqaanaan magaaladan bay wada joogaan waxaan ugu talagalnay shirkan in aayaheena kaga tashano waxa inaga maqana aan isweydiino meesha aan u soconay mustaqbalkeenana ay isweydiino gudoon aan ku wada midaysanahay oo dhalinta hogaamiya oo meel walba oo wanaagsan u horkaca oo masiirkooda inaan samaysano waa wax inaga maqnaa ilaahay baa ina sonsiyo subhanahu wa ta'ala marka waxaan leeyahay awal baa midowgeen hore u jiray oo waxaan nahay dad isjecel oo walaala oo ehela laakiinse waxa kala maqnaa quwadeena inaan isu keeno maanta quwadeeni baan isu keenay waxaan rabnaa haddaan quwadeena isu keenay inaan masiirkeena iyo aayaheena aan ka tashano dhalinyaranimo meesha isugu yimid dhammaan biyihii maxamed ibraahim meesha isugu yimid waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan idinkala qayb qaato shirweynaha aan filayo inuusan noqonin shirkii ugu dambeeyay in badan baan usoo halganay aad iyo aad inaan midnimada maxamed ibraahim ka talino aan isku midowno waan idinkaga mahadcelinayaa dhalinyarada waxbaratay cuqaasha odayaasha wasiirada wasiir ku-xigeenada cilal dad hore noo soo hayay iyo dad hadda noo hayaba horta waa idin wada salaamayaa dhammaantiin qof kastaba waxaan ku salaamayaa meeqaanka uu leeyahay oo sharafta iyo qiimaha iyo qaayaha leh waxaan rajaynayaa shirkaan inuusan noqon shirkii ugu dambeeyay oo ugu gogol xaaraya shirweynaha maxamed ibraahim ay isugu imaan doonaan insha allah iyo midnimada maxamed ibraahim
horta marka ugu horeysa waxaa idin leeyahay ciid mubaarak baadi layga beeraay laba ciidood baad isku darsateen ciidul adxaa ciidda carafo iyo waxaad isku darsateen ciiddii ahayd kowdii agas waa maalintii la aas-aasay baa fooda lagu soo hayso christmas waa maalintii aas-aaska maamul goboleedka Puntland waxaa idin leeyahay happy birthday to you too guys waan ku faraxsanahay inaad laba ciidood isku hesheen aad baad u nasiib badan tihiin maantayto waxaan leeyahay dhalinyarada meesha ka fadhida horta ilaahay subxaana watacaala ayaa iska leh xukunka ilaahay aynu ka cabsano ilaahay subxaana watacaala cabsidiisana aynu isxasuusino markasta waxaa idin leeyahay horay u socda waxaa loo baahan yahay dhalinyarooy inaad ka talisaan midnimadiina dhalinyarooy inaad isku xirnaataan in waa lagama maarmaan dhalinyarada maxamuud ibraahim cuqaasha maxamuud ibraahim isimada maxamuud ibraahim xildhibaanada maxamuud ibraahim wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada maxamuud ibraahim intuba inay isku xirnaadaan shimbir garable iyo wax ma garato haddiinan isku xirnaanin oo kiina doqonka ah iyo kiina fiican iyo kiina wanaagsan iyo kiina aan waxba qabanayn iyo kiina gaasaysan iyo kiina dharagsan kiina isku wadanin cid idin wadanayso cid idin rabtaa ma jirto waxaan ku faraxsanahay maantayto inaad isku timaadeen shirkankana uu noqdo shir ka mira dhaliya hamigii iyo mabdii aynu u lahayn waan ku faraxsanahay dee waan wada salaamayaa wixii aan dhihi lahaaba idinkaas tiraahdeen waan idin salaamayaa salaan sharaf iyo qiimo iyo qaayo leh anoo uga guulaysanaya ama uga faa'iidaysanaya 3 daqiiqo aad isiiseen horay u socdo marka koowaad muddo ku dhawaad 20 sano ah oo aan gaalkacyo ama gobolka mudug taagnaa weli ima soo marin dhalinyaro aqoon-yahanaa oo wiilal iyo gabdha oo gartay inay maanta ka hadlaan ama u diyaar garoobaan mustaqbalka ayahooda iyada farxad weyn ah Soomaalidu waxay tiraahdaa run sheeg waa ceeb sheeg awalan horta nin kasta oo dhalinyaro ah oo qalbigiisu nadiif yahay oo maxamuud ibraahim aniga taleefankayga iyo xafiiskayga iyo nafsadeeda way u furantay wiil iyo gabar xilli alla xilligay rabaan waxay rabaan waxaan diyaar u ahay ilaahay hortii aan la tegayaa qiyaamana inaan anoon idin kala jeclayn oo maxamuud ibraahim meeshaad ii dirsataan iyo waxaad iga codsataan aan idin la qabto dardaaranka idin siinayna wuxuu yahay maantay meesha aan joogno waxaa ka talisa xukuumad Puntland oo aan ka mid ahay dhalinyarooy waa la maalaa seesa lagu maalaa waxaa lagu maalaa si degan oo qabow oo macaan inaad xuquuqda aad leedihiin uga raagsataan adinka iyo dadka Puntland degan oo dhan isku xaquuq baad haweenku waa laf dhabarta bulshada waana udubka ay ku taagan yihiin ummad waliba oo koonka taagtan joogta marka laga yimaado inay haweenku yihiin indhaha iyo ilayska u ifa bulsho walba bulsho ahaan inagu haddaan nahay maxamuud ibraahim dabcan daa wiilasha la kafta waa in ka karti badanaa sida la idinku xanto waxaan u malaynayaa maanta intaasoo gabdhood iyo intaasoo hooyooyin oo dhalay iyo intaasoo hooyooyin oo ka sii badan oo maqan haddii ay isku duubni sameeyaan inay maxamuud ibraahim u guurayaan meel barwaaqa oo dhammaanteen aan ku joogno inteennaan halkaan iskugu nimid haddii aan damacno in aan bedelno magaalada gaalkacyo dhan waxbaan ka bedeli karnaa laakiin hadda waxaan iskugu nimid waa inaan beel yar wax ka bedelno wey yaa beesha maxamuud ibraahim baa iskugu nimid waxaan rabaa fakarkeenna inuu intaa ka sii weynaado waxaad arkaysaa in badan ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka suuratul kahfi waad aragteen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa innahum fityatun aamanuu birabbihim ilaahay subxaanahu saasuu tilmaamaya dowrka ay ku leedahay waxa weeye tiirka ummaddu ay ku taagan tahay wey oday kasta oo dagaal ooga ah ama dawlad kasta oo dagaal oogayso waxa ay ku tiirsan tahay oo dagaalka u galo
waa dhalinyaro saasa waxaa la yidhaha waa tiirka koowaad oo laga fiiriyo aan ugu faraxsanahay munaasabadan wixii anigu aan ka hadli lahaana waxaa ka hadlay maxamed suldaan waxa weeye waa midnimada ayay ka bilaabataa wax wada qabsiga iyo wada tashiga iyo wax walba ka soo baxaan waxaan idin rajaynayaa in aad qaadataan midaas oo maskaxda gashataan guddiga ka shaqeyna waxaan 7 qof 7 qof kan magaciisa abiis ma yaqaan madaasanasan taas waashan quruxda badan waxa ka soo shaqeeya 7 qof aan isaqoon waxa isku yimaadeen kaliya waa magaca waxa intaas ku keenay in kala baqana ku yimaadeen waxa isku keenay waa magaca dadnimadaas markaan waxaan leeyahay horta waad mahadsantihiin shida sharafta leh noo soo qayb gashaan noo timaadeen taymkiina waqtiga noo siiseen waxaan jecel lahay tan imaadko maahay mar walba inuu noo noqdo wadada ugu horeystaan ku mar lahayn weeye ishruweynaha birisbax insha Allah wixii ka dambeeya la qaban doono noqo wadaxaal qof walbana ha ogaado meesha uu joogo inuu yahay hal magac uu leeyahay anaga oo dhaxeeya markii laga niyaado masabka iyo magaca waalidka laakiin hal magac baa leenahay kulligeen waa reer maxamuud dhalinyaro waxa wax qaban karana waa dhalinyarada waanaka wax ka bedeli karana waanag anagu haddaan noqono dad isku duuban hal mowqif hal dhalinyaro hal hoggaan hal nidaam haddaan yahay waxaan aaminsanahay dadkana ka hormarayno sida ogeed waxaan rabaa naftayda tiinaba marka hore sinaa isku duubnaadno isku mid aan noqono madasha maanta isku nimid aysan noqomaad kaliya maaha mar walba la isku yimaado oo kulamada ay bataan maamulka insha Allah la sameyn doono inuu Ilaahay mana la shaqeysaan kaliya aniga waxa idinku bogaadinayaa un isku imaanshaheena halkan aan iskugu nimid inuusan noqonin wax xunba ah oo biri ka maalin aan waxba laga soo qaadin intii la iskugu yimaado qodobo ka soo baxaan la iskugu yimaado haddana aan la meermarin marar badan baan gruubyo galay aniga oo waliir waxbaa la wada qabsanayaa meel baa la gaarayaa haddana mid walbaba waqti badan muusa sii jiray nasiib darro marka waxaan rajaynayaa kulankan inuu noqdo mid miro dhala oo annaga iska daa jiilalka annaga ay iska daayay jiil 5 iyo 6 gaara marka annaga maxaan ka rabaa dhalinyarada halkaan dhalinyarada joogta reer maxamuud oo halkaan timid door intee leeg baan ku qaadan karnaa siyaasadda ku yeelan karnaa dad badan waxay isdhahayaan siyaasaddu inay waa kulusha waa qaraar tahay dad badan baa isku nacayaa wax walba way xumaanaysaa inaan iska daynaa qurux badnaan lahay ma iska dayn weyno waxaan inta iska daynay dheefteeda waa haynaa wax badan baa waxaan waxa weey waa iska daynaynaa xoolaheena ka raacanayna si qabow baan u galaynaa meelana waa ka dhabacaynaa wixii dhaanta way iska soo baxdo maanta in halkaan isku nimaano oo doorkeena muujino awood aan leenahay maanta waxa weey wax sawir badan baa soo baxaya marka dhalinyarada la arko waxa soo baxaya doorka iyo quwadda dhalinyaradu ay leedahay dhalinyarada maxamuud ay leeyihiin ay gobolka ku leeyihiin Puntland ku leeyihiin Soomaaliya ay ku leeyihiin ayadoo qayb kamid ah hadda wax yar la casuumay oo haaf kamid ah waan ku dhaweyn xataa 3 meelood haaf la casuumay bay atana waxa weey waxa muuqanaysa awood iyo cudud ay leeyihiin ayagoo marka dadaalkooda iyo awoodooda muujiyay oo dhanka siyaasadda waxa noo noqonaysaa xoog iyo quwad axsaabtii in lagu biiro waxa waa door noo muhiim ah anaga asxaab baa la furay haddii Soomaaliya ahaan lahayd iyo Puntland ahaan lahayd intaba dhalinyarada waxa la door fircoon ay ka qaataan oo asxaabta ku biiraan oo fircoonaan waxa weeye haddii heer federaal iyo waxa weeye ahaan lahayd heer maamul goboleed idan maanta waxaan hortaala labo hortaala ayaa waxay tahay inaan midnimo muujino inaan isku xirnaano inaan noqono dad hoggaan leh isla markaasna meel kasta iyo xilli kasta ay u baahdaan hawl inay qabsadaan ka mid keeni kara taas waxaa noo suurtagelin kara waa inaan yeelanaa hoggaan aan ku midaysannahay isla markaasna noo suurtagelin kara meel kasta iyo wax kasta oo annaga aan doonayno sidaa daraaddeed annaga dhalinyaro ahaan iyo bulsho ahaan intaba ayaa waxaa xil naga saaran yahay bulshadeenna arrintan ka hadlaayo arrin caadiya maaha waa arrin diiniya waaye waa andir cashiirata kala aqribin baa lagu yidhi markaa wax bilaabaysa kow bulshadaada ka bilow ehelkaa ka bilow dadkaa ka bilow idan markaan annagu aan noqonno dad isku filan dad hoggaan midaysan leh dad aayahooda ka tashan kara ayaan wax la qaybsan karnaa khayrkeen idan waxaan u baahannahay marka si ay taa u suurto gasho waxaan u baahannahay
dhalinyaro ahaan iyo aqoon-yahan ahaanba inaan kala qoqoobka iyo iisheeg iyo waxyaabahana kala fogeyn kara inaan meesha ka saarno oo aan noqono dad isku duuban hal hadaf leh reer maxamuud wax ka sukeeyay inaan ku qanacno waa dabaalnimo haddana idan waxaan u baahannahay marka maadaama anagu aan nala kala aqoon oo marka meel merisid hebel lagu yaqaano inaad danta reerkaaga aad ka hesho qabyaarad maaha waa arrin diiniya saa daraaddeed waxaan u baahannahay inaan anagu hankeenna uusan ka sokomarin reer maxamuud bal uu kor u socdo reer maxamuud ma jeerteen ilaa daarood oo dhan aan hogaamino ilaa heer Soomaaliya dhalinyaradeeda aan hogaamino sidaa daraaddeed waxaan u baahannahay anagu inaan noqono dad hadaf leh hadafkaasna waxaa keeni kara oo miro dhal ka dhigi kara waa idinka qodobada ka soo baxay shirkii wadatashiga dhalinyarada reer maxamuud beesha reer maxamuud qodobka koowaad shirku wuxuu adkeeyey midnimada iyo wadajirka dhalinyarada beesha reer maxamuud qodobka labaad shirku wuxuu isku raacay oo la doortay hoggaan iyo guddi hagee dhalinta kana shaqeeya aayahooda dhow iyo kan fogba qodobka saddexaad shirku wuxuu kaloo isla gartay in la raadiyo xaqa beesha uga maqan dowladda federaalka Soomaaliya sida labada aqal ee baarlamaanka iyo xukuumadda dowladda Puntland hadday ahaan lahayd heer maamul gobol iyo heer degmaba qodobka afaraad dhalinyaradu waxay isla meel dhigeen inay isku xiraan qaybaha kala duwan ee beesha sida odayaasha haweenka aqoon-yahanka siyaasiyiinta iyo culimada qodobka shanaad dhalinyaradu waxay ku heshiiyeen in la qabto kulan weyne ay isugu imaanayaan qaybaha kala duwan ee beeshu ka kooban tahay oo laga hadlayo masiirka beesha sida arrimaha bulshada dhaqaalaha siyaasadda ku wajahan dowladda Puntland iyo tan heer federaal xilliga uu dhacayo shirku waxa ay ilaamin doona guddiga la doortay qodobka lixaad dhalinyaradu waxay isku raaceen in lala kulmo dhalinyarada kale ee gobolka si wadajirka looga shaqeeyo arrimaha naga dhaxeeya ee guud ahaan dhalinta gobolka iyo guud ahaan dhalinta Puntland qodobka toddobaad shirku wuxuu xoojinayaa nidaamka dowladnimo ee lagu doonayo in lagu qabto doorasho qof iyo cod ah taas oo aan u aragno inay horseedayso hufnaan iyo horumar Soomaaliyeed loogana horumarayo nidaamkii cadaalad darada iyo dulmiga ku dhisnaa ee 4.5 qodobka sideedaad shirku wuxuu ugu mahadceliyay dhalinyarada reer maxamuud ee isku hawshay dadaalkana gelisay shirkan wadatashiga wuxuuna u rajaynayaa guul iyo horumar wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh shiraatantaguud u shuureeyo noo sheega wanaag la shaacin karo ushumihii sharwado shib naga dhaha